على رسول الله وزيرك aad ayuu u mahadsan yahay wuxuu halkaan nooga akhriyay maalmihii la soo dhaafay qodobadii laga wada hadlay iyo xaaladda dalka guud ahaan iyo meesha itijaaha loo socdo haddii alla yiraahdo iyo shirarka dambe siday u dhici doonaan haddii alla yiraahdo waxaan rabaa halkaan inaan marka koowaad ka bogaadiyo mas'uuliyiinta halkaan joogta muxuu ahaay mas'uuliyadda Soomaaliya maanta iyo mas'uuliyadda deegaanada dalka Soomaaliya oo dhan ayaga gacanta ku haya oo dadaal aad iyo aad u badan deegaanadoodina ka muujiya haatan ka wada muhiimadda dawladda Soomaaliya ee la dagaalanka argagixisada iyo khawaarijta maanta dalka qaybaha kala duwan ay ka sugan yihiin dadaalkaasi waa ka socdaa waana loo midaysan yahay waana loo ballamay inaan loo kala harin sidii dalka nimankaas looga bixi lahaa gacantooda iyo meelaha ay joogaan dhibka dadka ay ku hayaana loo saari lahaa nimankaas isaga hadlimayna galabta wixii aan dhihi lahayn horay ayaan u soo dhahnay dadka Soomaaliyeed iyo arxan darrada ay ku hayaan waan soo sheegnay anoo ku hadlayo magaca golaha mar kale waxaan u tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii muxuu ahaay ku geeriyooday 29kii bishan Oktoobar dhibaatadii ay khawaarijtu ka geysteen zoonaha Zoobe iyo Safari Hotel agaarkiisa dadka meesha ku dhintay samri email Allah naga siiyo ayagana jannadii firdawsa Allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu ahaay Ilaahay ha u boogadhayo oo caafimaad degdeg ah siiyo caalamka abeen weeytu waa u baaqnay in kaalmana la soo gaaro waana la soo gaaray waana soo socotaa qaar waana soo gaareen sidoo kale dadka Soomaaliyeed inay isu gurmadaan bixinay tirada ugu badneed dad Soomaaliyeed ayaa dhiigna ku tabarucay isbitaalada daaqa fara badan muxuu ahaay la yimiday oo dadkii gaarsiiyay haddana wali way socotaa guddiga aan magacawnay ee gurmadka runtii waxay noo soo tabinayaan in maxaan ku raadayay dadka Soomaaliyeed dadaalkooda uu aad iyo aad u badan yahay sidaan u ballan qaadnay habeen dhaweeto ayaa naga dhaba Oktoobar kale oo sidaan oo kale dib badan inaan soo marin ayaan ka shaqeynaynaa Ilaahay idinkiisa dii alla yiraahdo inta kadib dalkeenu marxalad uu ka guuraya muddo uu ku soo jiray marxalad kale uu guuraya marxalad dib iyo qahar iyo karaamo dil iyo caqiidadii iyo cibaadadii ummadda ay lahayd oo lagu cayaaro qarannimadii iyo ummadan ummadnimadeedii oo maxaan ku raasuxun iyo suxun loola dhaqmo ayaan ka guureynaa waxaan u guureynaa gole ama meel barin nabad ah oo maxaan ku raadaay diinteennana aan u madax banaano ku caabudano dadkeenana sharaftooda iyo karaamadooda aan ku ilaalino ayagoo isla jiro walaala oo gacmaha isaysto heshiisa caalamkana aan kula macaamilno wanaagaas aan gaarnay gobonnimadeena afka qalaad sovereignty lagu yiraahdo oo kaamil ah oo dhameystirnay ayaa waxayna ciidamada AMISOM aan magacawnay ee gurmadka runtii waxay noo soo tabinayaan ka wada muhiimadda dawladda Soomaaliya ee la dagaalanka alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah iyo Febraayo 2023 halkaas ayuu nooga dhan yahay